wararkii ugu dambeeyay duulaanka laga cabsi qabo in ahlu sunna wal jameeca ay ku soo qaado dhuusamareeb iyo gurceel ayaan halkan idinkugu soo koobaynaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo page-kan aad soo booqatay like iyo follow dheh, lana sii wadaag asxaabtaada kale. qaybta commentigana fikirkaaga xor ayaad u tahay. maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad loo hadalhayay in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan uu ka socdo bohol oo 60 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada caasimad u ah galmudug ee dhuusamareeb, halkaasi oo fariisin u ah ahlu sunnada hubaysan oo uu hogaaminayo sheekh shaakir. isla markaana xoga soo baxaya ayaa sheegaya in toddobaadkii ugu dambeeyay sheekh maxamed shaakir cali xasan uu aad u kordhiyay abaabulka ciidamo uu ku doonayo in mar kale dib uu kula wareego magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb. si looga hortago dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxaa jirtay in heegan la geliyey ciidamada amniga ee ku sugan dhuusamareeb iyo gurceel, kuwaasi oo isugu jira ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa galmudug. marka la eego magaalada gurceel waxaa ku sugan ciidamo badan oo haramcad ah, kuwaasi oo kaalin weyn ka qaatay ka saaritaankii bilo ka hor ahlu sunna wal jameeca laga saaray magaalada gurceel, iyagoo gacan ka helayay xilligaasi kuwa galmudug. haddaba warar soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in saraakiisha ahlu sunnada hubaysan ay qoysaskooda kala baxeen magaalada dhuusamareeb iyo weliba magaalada gurceel. isla markaana sidoo kale la warinayo in tani ay sii kordhinayso tuhunka ku saabsan in weerar abaabulan ay qorsheynayaan ahlu sunna. meesha dhiilada laga dareemayo ma ahan gurceel oo keliya, sidoo kale waxaa wadnaha farta lagu hayaa gurceel marka laga soo tago dhuusamareeb. isla markaana shacabka ayaa qaba tuhun aad u xoogan oo suuragal ka dhigi kara inay mar uun ku baraarugaan ahlu sunna oo soo weerarta magaalada dhuusamareeb. ciidamada inkastoo ay feejigan yihiin, haddana dad badan ayaa waxay ku talinayaan in muhiim ay tahay in amniga sugistiisa wax badan laga bedelo, isla markaana ciidamada ay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda ku saabsan duleedka magaalada oo aan la sugin xitaa ahlu sunna haddii ay soo weerarayaan in gurceel iyo dhuusamareeb dhexdeeda xabadda aysan ka bilaaban. sidoo kale warar soo baxaya waxa ay tilmaamayaan daawadayaal in farxaan qaroole uu ogolaaday in ciidamo dheeraad ah oo haramcad ka tirsan la geeyo gurceel, iyadoo halkaasi tiro ciidamo ah iminka ay ku sugan yihiin weli. ciidamadan ayaa la qiyaasayaa tiradoodu inay tahay ugu yaraan 200 oo askari si ay u xoojiyaan amniga magaalada dhuusamareeb iyo weliba dhinaca gurceel, isla markaana ahlu sunna aysan ugu soo dhiiran inay si fudud halkaasi ku qabsadaan. laamaha amniga waxay mamnuuceen haba yaraatee in magaalada laga qaxo, iyadoo ciddii lagu arkaa iyadoo isku diyaarinaysa qaax tallaabo sharci ah loogu hanjabay in laga qaadi doono. madaxda galmudug intooda badan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay ku sugan yihiin, marka laga reebo kuwa tiro yar oo fikirkooda xor u ahna waxaa muuqata intooda badan oo madaxweynaha uu hogaaminayo inay dib uga shaqaynayaan dib u doorashada madaxweynaha iminka xilka kasii degaya maxamed cabdulaahi farmaajo. sidoo kale ma laha wax wasiir amni ah tan iyo markii xilkii wasiirkii amni uu iska casilay axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya. isla markaana madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa u muuqda in arintaasi culayska ay ku sii kordhinayso. marka la eego magaalooyinka Matabaan iyo Gurceel waa magaalooyin ay ku badan yihiin taageerayaasha ahlu sunna wal jameeca, waxaana ahlu sunna haddii ay isku dayaan inay dib u soo weeraraan magaalooyinkan laga cabsi qabaa inaysan ku adkaanin in gudaha ay u soo galaan. ma jirto saansaan culus oo xilligan waxgaradka deegaanadan ay ku muujinayaan inay ka hortagaan in magaalada dagaal uu ka dhaco, isla markaana wax walba waan lagu dhameeyo. ahlu sunna wal jameeca dhawaanahanba waxaa la warinayay inay sii kordhaysay cududooda ciidan ee ay ku ururinayeen dhinaca iyo bohol, halkaasi oo ah meel laga soo abaabulayo haatan dagaalada la qorsheynayo in lagu soo qaado dhuusamareeb iyo gurceel. wixii ku soo kordhaa halkan ayaad ka daawan doontaa. waxaana kaa codsanaya haddii ay tahay markii ugu horeysay oo page-kan aad soo booqatay like iyo follow inaad dhahdo, isla markaana aad la sii wadaagto xogtan asxaabtaada kale. mahadsanidin.